iyadoo muddooyinkii dambe ay abaaro ba'an oo saameeyay dad iyo dunyaba ka jiraan guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolka Sool ayaan maalinimadii shalay safar u kuurgalida xaaladda abaareed aan ku gaadhnay deegaanada Canjiid Ari Cadeeye Tula Samakaab iyo Goori iyo deegaanka Sindhoobo markii aanu gaadhnay deegaanka Sindhoobo oo 30 kiiloomitir u jira degmada iyo Goori ayaa waxa halkaasi kula kulanay dad reer guuraha oo u badnaa dumar iyo carruur kuwaas oo miciin soo biday ceel biyo adag oo halkaasi ku yaala halka ragina ay xoolaha intii ka baxday mooye intii kale u la hayaameen deegaano durugsan dadka reer guuraaga ayaa noo sheegay in ay xoolihii ka dhamaadeen biyo la'aan baanina ay hayso isla markaasna aysan jirin wax ceelala oo deegaanadani ay leeyihiin taasna eedeeda ay leedahay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka kheyraadka biyaha oo ka soo jeeda deegaanadani dadka reer guuraaga ee halkaasi deganaa ayaa intaasi ku daray in wax kaalmo aysan ka helin xukuumadda Soomaaliland oo deegaanadani ka arrimisa iyagoona cambaareen dusha uga tuuray xisbiga talada haya ee Kulmiye oo aan wax qabada ka fulin deegaanadaasi tan iyo intii uu talada la wareegay ugu dambeyntiina dadka reer guuraaga ayaa dhammaan ummadda muslimka ka codsaday inay la soo gaaraan kaalmo bini'aadanimo haddaan eebbe raxmaadkiisa u shubin iyagoona walaac ka muujiyay biyo la'aanta haysata waqtigani Canjiid waa deegaan bannaan oo xaaluf ah kaliftayna soo guurtadii sakadii hore ama dayr labaad ka soo guuray bari ee isku raranta ahaa oo si mucleh u degay deegaanka kadibna ay kaliftay in ciidiiba xag kale ay u rogaan dhulkiina uu ku dhaco nabaad guur iyo saxare wixii ku yaalayna ay cunaan hadeerna ay tahay abaar deegaanka waa deegaan biyaraana wasiirku wixii hadda ka hor uu dhagax dhigay wasiirka biyaha Master Baashi Cali Jaamac weli waanu sugaynaa hawsha kamana hayno wax qabada anagu deegaanka Tula Samakaab odayaashiisii abaaraad iyo aad u baahan ka jiraan waxa weeyaan iyadoo ay sida ay tahay meel oo mana ku taala deegaanka Ari Cadeeye iyo wariba u dhaxeeya weeye waa meel la yaqaan ceel male biyo male waxa weeye waxa laala waxay leedahay meel hoos loo eega maaha wasiir kasta oo u ololayna xusbikii waxa weeyaan meesha waa la yaqaana hoosna cid uma eegto abaara hadeerto waa laga kala guuray waxa weeyaan maanta waxay u baqtidaa waa biyo la'aan cidoogina ma jirto waxaanu cambaareynayna waxa wasiirka waxa weeye laba riiga hareeraha naga mariyay Baashe Cali Jaamac wasiirka maxay Faratoon Sheekh waxa weeyaan waxay hoos loogu eegi waayeen oo oran waayeen deegaanka Tula Samakaab muxuu yahay baanu anagu hadeerto isweydiinaynaa walaal anagu waxaanu ka nimid deegaanka Calool imkana waxaanu ku suganahay deegaanka maxay tahay ceel la yiraahdo ceel kan magaciisa muxuu ahaa Sindhoobo maxaan dhahdaayay xoolihii way baxeen maxaan dhahdaayay biyo la'aan waxtar wixii nala tarayo waan u baahan sidaa daraadeed aanu joogno meel hoy xumo ah oo hadda hadduu roob curto aanan xataa hoy haysan waxa la wixii nala tari karayo waan u baahana biyo la'aanta biyo u baahanahay biyahan ma haysanaa biyo adag hadday carruur tahay iyo hadday dad waaweyn tahayba wayna waagagiin waayo waxa jiraya carruur yar dhinacaana loo qasayo kuma qasin karaan kuma naabi karo waxa meesha dhakeenana biyo doon iyo muslim doon baanu haynba waxaanu ka nimid meel ay jeegayayd dad iyo dunyaba nal kaga tagay xooli wax baxay iyo wax noolba way leeyihiin wixii noolana way naga fogaadeen dad iyo dunyaba markaas daraadeedaan meesha u nimi waxaan muslimka ku dhawaada ama biyo wixii leen ku caawin karo biyo iyo baada leen ku caawiyo isku soo wada duubo inta badan deegaanada hoos yimaada gobolka Sool ayaa waqtigani waxa ka taagan abaar ba'ani taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay dadka iyo dunyadaba mana jiraan wax kaalmo oo ay dadka reer guuraaga ee la itaal daran xanuunada iyo biyo la'aanta ay heleen ilaa iyo haatan Samiir Saciid Bilaa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsh Laascaanood